إيران ayaa heegan gelisay ciidamadeeda kala duwan iyo nidaamyadeeda difaaca hawada kadib markii sirdoonka Iiraan uu helay xog sheegaysa in Israa'iil ay damacsan tahay inay weerar kaliya ku soo qaado magaalada Isfahan. Israa'iil ayaa dhowr mar isku dayday inay weerarto xarumo magaaladan ku yaala inkastoo ay ku guuldareysatay. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay Iiraan u leedahay magaalada Isfahan ee inta badan Israa'iil ay ka warwarto dhaqdhaqaaqyada ka socda magaaladaas? Waxaan soo gudbinaynaa macluumaadyo ku saabsan magaalada Isfahan iyo xogo kooban oo magaaladan laga hayo. Magaalada Isfahan waxaa lagu sifeeyaa wadnaha Iiraan, waxay ku taallaa bartamaha dalka Iiraan, waxayna kulansatay waxyaabo badan oo laga maarmaan u ah jiritaanka dalka Iiraan. Waa magaalo aad loo ilaaliyo oo cid kasta aan loo ogolayn inay gasho. Waa magaalo siro badan ay ku duugan yihiin oo ku adkaatay sirdoonka reer galbeedku inay xogo sugan ka helaan. Magaalada Isfahan waa xarun military oo muhiim u ah Iiraan, waxaana ku yaala saldhigyo qarsoodi ah oo ay isticmaalaan saldhigyada Iiraan. Waxaa la sheegaa magaalada Isfahan inta muuqata in la eg inay aasan tahay dhulka hoostiisa oo ay ku yaalaan godod iyo saldhigyo gaar ah, sida uu sheegay Cali Dijana oo la shaqayn jiray dowladda Iiraan markii hore, balse markii dambe ka soo cararay Iiraan oo hadda ah mucaarad dibad wareega. Waxaa ku yaala magaaladan xarunta nuclearka ee Natanz ee qaabilsan kobcinta uraniumka. Waxaa kaloo ku yaala magaaladan xarunta farsamaynta iyo bacriminta uraniumka. Waxay saldhig u tahay shirkadda diyaaradaha ee Iiraan, taas oo soo saartay diyaaradaha droniska ee kala ah Shaahid 129, Shaahid 136, Ababil iyo diyaaradaha dagaalka ee la yiraahdo Saaqa iyo Kawsar. Sidoo kale magaalada Isfahan waxaa ku yaala mid ka mid ah saldhigyada ugu weyn ciidamada cirka ee Iiraan. Magaalada waxaa degan sida la sheego culimada sayniska ee Iiraan ee ku howlan barnaamijka nuclearka Iiraan, waxayna magaaladan ku leeyihiin guryo qarsoodi ah oo lagu ilaaliyo aqoon-yahanada Iiraan ee looga cabsi qabo inay shirqool ku diraan Israa'iil iyo reer galbeedku. Magaaladan waxaa ku rakiban sida la sheego nidaamyada difaaca hawada Iiraan kuwooda ugu casrisan, waxaana la sheegaa inay ku yaalaan ilaa iyo 4 xarumood oo nuclearka. Waa inta la og yahay sida laga soo xigtay ila sirdoon. Magaaladan waxaa lagu tuhmayaa inay ku yaalaan ilaa 8 god oo ah kuwa laga gabado waxyeelada nuclearka haddii uu dagaal nuclear dhaco. Godadkan ayaa loogu talagalay madaxda ugu sareysa Iiraan iyo wadaadada hogaamiya kacanka Iiraan. Sirdoonada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa 2021 sheegay inay magaaladan ku hoydaan madaxda sare ee Iiraan xilliyada Iiraan ay ka jiraan xaalada ammaan darro. Dad badan ayaa jawaab u heli waayay sababta ay Iiraan magaalada Isfahan isugu keentay xarumihii ugu muhiimsanaa ee nuclearka, saldhigyadeeda ciidan ee ugu sarreeya iyo warshadaheeda wax soo saarka dhinaca militariga. Xeeldheerayaasha ayaa sidoo kale aan jawaab u hayn kalsoonida xad-dhaafka ah ee Iiraan ay ku qabto magaaladan oo ay isugu keentay wax kasta oo muhiim u ahaa. Dowladda Iiraan ayaa magaaladan si weyn u difaacatay markii u dambeysay Israa'iil ay weerarkadiisa ku soo qaaday magaaladan sanadkan. Iiraan ayaa xilligaasi ka hortagtay oo soo riday diyaaradaha ismiineeya oo ay Israa'iil ku soo weerartay magaaladan muhiimka u ah Iiraan ee Isfahan.